سارة أي اللي سنين بليس شيء وحاوي حاوي sharmaarka cabdinaasir ama sharma boy ma laga yaabaa inaad fanka dib ugu soo laabato maadaama horey loo arkay fanaaniin aad u fara badan inay fanka isaga baxeen haddana ay dib ku soo laabteen fanka markaan ka baxay baahi oo ma bixin ma fahanti fanaaniin oo fanka ka baxay oo irsaaqad ka heli jiray oo fanki ka baxay oo irsaaqad ugu soo noqday wali ma jiraan laakiin hobby iyo fanki iyo haayo ay iska celin waayeen bay ugu soo noqdaan ma garata laakiin ana waxaan rajeynayaa maadaama nin dhalinyaro aan ahay anoo waayeel aan ka bixin oo mataqaanaa wixii inta ku dheeraaday sanadooyin anoo ku jira aan ka bixin intee fursad aan haystaa aan wax ku barto fursad aan shaqo kale ku sameesto haddii lagu dhihi lahaa tilmaam meesha xilligan aad ku sugan tahay waddanka Mareykanka maxaad ku tilmaami lahayd America fruit waa invent waa meel yar oo mataqaanaa iska biidsa ah sheekhnimada iyo cilmiga diinta waa darajo Ilaahay uu bixiyo iyo dadaal uu qofka sameeyo ma laga yaabaa sharmow in aad noqoto daaci diinta islaamka faafiya sheekhan waxa waaye darajo waay laakiin qof walba oo Ilaahay ugu talagalaan hela laakiin waan rajeynayaa inaan noqdo sheekh sharmaaka la yidhaho sharma haddii lagu dhihi lahaa nolosha dib ayaa lagu celinayaa hal shay kaga faa'iideyso oo aad horey u soo martay maxaad kaga faa'iideysan lahayd oo aad soo sixi lahayd salaamaad Soomaaliyeey wiilkan waa sharmaarka cabdinaasir maxamed waxay dadka u goran ag yihiin sharma boy waxa uu ahaa fanaan farta ka xiran muddo yar oo uu fanka ku jiray waxa uu sameeyay wax ay sameeyeen waayeen dad 10 sano ku jiray fanka laakiin mar quraaya waxa ka soo yartay sharmaarke in uu yiri waan isaga baxay fanka aniga taasoo cajaa'ib la noqotay dadka xilliyadii hore dadku marka ay da'aada kore gaaraan ay sameyn jireen inay fanka isaga baxaan Ilaahayna u toobad keenaan dadku Soomaalidu aad bay ugu farxeen cunug aad u da'yar oo aan 30 sano gaarin fankana heerka ugu fiicnaa Soomaalida xilligan ka taagan in mar qura uu Ilaahay ku ilhaamiyo in uu fanka yiraahdo waan isaga baxay dad badan oo ka hadlayay ayaa jira oo siyaabo kala duwan uga hadlay kuwa leh mucjisooyin ayaa la tusay hadba noocay dadka uga hadlayeen laakiin waxa muhiim ah inuu Ilaahay qofkan ku ilhaamiyay in uu sida yiraahdo niyadana ka soo geliyay hurdalaan ku dhacday sabab uma ahan dhibaato ku dhacday sabab uma ahan waxyaabo fara badan oo ay dadka tilmaamayeen sabab uma ahan laakiin waa Ilaahay wax uu ku ilhaamiyay isagana uu talaabadeedii u qaaday haddaba su'aalo dhowr ah oo sharmaarka cabdinaasir la weydiiyay ayaa waxa uu uga jawaabay si saaniya su'aalahaas waxa ka mid ah inay suuragal noqon karto in fanka sharmaarka uu ku soo laaban doono maadaama horey loo arkay fanaaniin aad u fara badan oo markii hore yiraahdeen fanka waa isaga baxay haddana dib ugu soo laabtay sidoo kale waxa ka mid ah su'aalaha la weydiiyay in ay meesha uu fanka ka waday in uu qaybta fanka u bedelo nashaa'ida inuu qaado oo bulshada uu gaarsiiyo inay suuragal tahay inuu daaci diinta islaamka faafiyo noqdo jawaab waafi ayuu sharmaarka ka bixin doonaa iyo Mareykanka uu xilligan ku sugan yahay waxa uu ku tilmaamay macna ahaan su'aalo dhowr ah oo gabar caan ah oo Soomaaliyeed oo baraha bulshada aad looga garanayay ay weydiisay ayaa waxa uu uga jawaabay sidii saxda ahayd ilaa heer gabadha ay dhahdo yani waxaan aad u jeclaystay sida daacadnimada aad su'aalaha ugu jawaabayso sheekadan idinku daalin waxaan iska kiin kala dhaxbaxayaa sharmaarka cabdinaasir su'aalaha la weydiiyay iyo qaabka uu jawaabaha u bixiyay ku soo dhawaada hadda laga yaabo sharmow ila noqotay sheekh quraanka faafiya xadiisinta faafiya mar laga yaabo ka baxdid toos wallahi billahi taala horta sheekh mataqaana qof walba oo gar leh ama khamiis qabo horta sheekh ma noqon karo laakiin waa darajo Ilaahay bixiyo hadduu Ilaahay igu talagalo in aan noqdo laakiin markii la fiiriyo dadku ay kala duwan yihiin sheekh waxa la qofka dacwada Ilaahay mataqaana dadka u gudbiyo oo wax bartay diinta maadiga ku dheereeyo oo mataqaana fahansan dadka kale oo caadiga ah hadaa sheekh noqon qasab maahan laakiin hadaa qof Ilaahay ku xiran oo sheekhyada dhageysto dadka oo dhan sheekh haday wada noqdaan sheekhyada wax dhageystay waa inaan fahanto marka qof dhalinyaro marka tahay oo Ilaahay aaminsan oo diintiisana mataqaana xooga saaro salaadiisa tukada shantiisa waqti wax ka maqan ma lahan ma fahanto sheekhan waxa waaye darajo waay laakiin
qof walba oo ilaahay ugu talagalaan hela laakiin waan rajeynayaa inaan noqdo sheekh sharmaaka la dhaho fahant laakiin laga yaabaa inaad ku noqotay fanka bos dad badan baa jira sharma oo inta dhaan fanka waan ka baxnay berina kusoo noqda wallaahi bilaahi talaahi fanka waxaa waaye dadka kusoo noqdo horta aniga fanka aan kuu sheego hadda fanka markaan ka baxayay baahi oogama bixin ma fahanti markii wax la dhaho xaqiiq markii laga hadlo waa ku haystay meesha ugu fiicnay haddaanan soo dhigin waxba haddaanan soo dhigin maanta fanka markii la fiiriyo iyo qofka xafiiska fadhiya aniga waxba uma ogeen ma fahanti waayo haddaan waxba soo dhigin xataa bil iyo 2 bil iyo waa iska qaadanaya markay ugu yartahay 5,000 kun 6,000 kun waa iska diiranaya ma fahanti laakiin heese iga soo galaysa marka fanaaniinta hadda sheegaysa oo kaleeto waxaa jiro hobbiga ku soo celiyay waayo fanaaniin oo fanka ka baxay oo irsaaqad ka heli jiray oo fanki ka baxay oo irsaaqad ugu soo noqday weli ma jiraan laakiin hobbi iyo fankiyo haayo ay iska celin waayeen bay ugu soo noqdaan ma garata laakiin aniga waxaan rajeynayaa maadaama nin dhalinyaro aan ahay anoo waayeela aana ka bixin oo mataqaanaa wixii inta ku dheeraaday sanadooyin anoo ku jira aana ka bixin dee fursad aan haystaa aan wax ku barto fursad aan shaqo kale ku samaysto meesha ugu fursad dunida waa joogta walaa aaminsana balaa sharma ugow ilaah wuxuu jecelahay isagoo dhalinyaraa u soo noqda qofka shabaabka ilaah jecel moodan qofka weyn oo noqonaysa ma ogid dad badanaa waxay ku dhahayaan feesaha youtube iga saara dheh war fanaaniin iga horreeyay aad jiro oo waxaan iska laabay fanka ilaa hadda heesooda youtube ku jiraan si kasta u hadleen dadka Soomaaliyeed baliis waa idin bari ah dhegeysanina ummadda haddaa dhahdid markaas ay ku sii dhegeysanayaan ma fahanti aniga waxaa waaye haddii dhegeystaan iyo haddii dhegeysaninbo dee aniga xaaladda markaas aa ku jiro buu ilaahay ii xisaabinaya ma garat shaqa aa qaban jirtay qof aan mataqaanaa haayaa qof bini aadan looma cadaabo ha iyo qofka hadduu dhintan ogow camalkiisa bartaas ku istaaga haddii hadda dib u dhegeysta hadda dambi uma socdo because wixii uu adduunka ka geystay markaas halkaas lagu istaagto wax looma sii xisaabinayo you know ay dhegeysanina baliis sheyga waxaa waaye war haddaa dhegeystiin haddaydan dhegeysaninba aniga faraha ka qaada idinka idin taalaa ma faateen sax sharma laakiin kan ma oga adigu waxaa noqotay one of fanaaniinta Soomaaliyeed sharma yani waxa ku kulanay stage sharma waa isnaqaare ka hor laakiin waliidii la kulma fanaaniinta kale caadi loola kulmaa isaga laakiin security gooniyu haystay isku same spotna laga macsuumay Nasruddin Abdi walaal macaan xiil shacab aadaa ku salaamaya walaalkii macaan ana walaal waa ku salaaman Nasruddin one of wiilasha kaliya aan ka taageero TikTok wiilkaas dadka in lagu daydo mudan waa marka meel fiican taagneeda alxamdulillah ilaahay ka qabtaa nasiibna I'm proud of you walaal hay America iga waran ma ka hesha America fruit waa ma fahanti وكو هايستانك ببحاي أمريكا وميل يرو اسك فروت waa meel yar oo mataqaanaa iska biitsa ma fahantaa adi biisdina culus ها اوكي شرم سؤال بaan ku weydiinayaa alaas ka wareysta dadka caanka ee dhageyso يا dadka caanka la wareysto jeclaa mogtaa صح igu soo rid abaa su'aal laakiin oo laga jawaabi karo ha adduunka maxaa ugu wadankee ugu jeceshahay ku noolaatay rest of your life aniga ha walahi wadankeyga mataqaanaa qof walba wadankiisa horta meel ugu muhiimsan ma jirto ma garad xaggan waxaan u joogana waxaa waaye nabadgelyo doon
wadan oo amni lahaa imaaday fursado leh oo hadda maantadan la joogo wadankii ka fiican xagga mataqaanaa fursadaha dhan walbo marka mar walba waxaa ahaanaa nabadgelyo doon ma garata meesh nabadgelya leh laakiin haddii wadankayga dee maasha allah oo ilaahay wadan maaragta ka dhigo fiican oo fursado leh oo dhalinyarada maanta mataqaanaa hadda xaaladda waa aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagoo wax bartay aysan fursad u haysanin dalkii inay mataqaanaa ka shaqeystaan hooyooyinkoodu aan waxaynin inta yarta ee hayeen iyo waalidkooda ee u sameeyeen bajaajlayaal bajaaj ay u iibiyeen ayagoo aqoon leh oo mataqaanaa oo wax bartay shahaadooyin ee bajaajlayaal yihiin haddana mataqaanaa ay ka fakan dadka waa sidii uga fakan lahaayeen dhinac mataqaanaa argagixisa ka baabi'inayso oo qarax lagu baabi'inaya dhinac mataqaanaa dowlad isku sheeg dowladda Soomaaliyeed wax kama sheegay laakiin ciidan adduunka ciidanka la qoraayo waxaa loo qoraa mataqaanaa shuruudo baa qofka askariga ah lagu qoraa ma garatay shuruudo badan waa inuu askariga uu soo maraa tababar badan dhanka shacabka dhan walba inuu soo maraa asiga ahaan physically maskax ahaan dhan walba inuu qof ka dhisan yahay Soomaalida marka dhalinyaradeena weli Muqdisho saan ku ogaani cabtooyga hadduu damco inuu askari qorto waa la qoraaya ma fahanti qofka nolosha ku dhacsanaya askari la qoraaya wadadu istaagaya mataqaanaa dhalinyaradii masaakiinta ahayd ardayda ahayd oo shaqeysanaysay meeshuu xabad ku baabi'inaya asoo oo khamri iyo karis ka soo dhargay ilaa horta wadankii nabad ha nooga dhigo okay su'aasha labaad maanta haddii lagu dhaho Sharma dib baa lagu celinaya noloshaaday wax ka faa'iideyso maxaa ka soo faa'iideysan lahayd aniga haddii dib la ii celiyo noloshayda والله بالله تعالى هرتا الحمد لله رب العالمين أنا نورشيدا هدي دبل علي وحكي فائدة سعدين لي إنه قلادات بدنا أنت دينا قف دنيرها يقدر عي حتى بدنا يرواه لكن أنت أصلا كسيرة قلادات دي وين ويقدر عي واجرو waxyaabo badan oo waalidkayga ay markaas iga qabanayeen laakiin anigana aan u arkay mataqaanaa wax fiican baa ogolaan lahaa okay waalidkayga ku raaci lahaa cuntooyinka which is your favorite maxaa u jeceshaa maanta ku dhashay markuu macsuumay soo booqo maxaa jeceshaa in lagu siiyo والله بالله تعالى هرتا رون إني كتاي إني بين كتاي مع قامي ضد كده أنا my favorite و my favorite و ده عند رون كتاي عند استوتس كتاي موجي لكن أنا عمتعنا بريسو باستو موفو صور على كيف تعيشها وكعقبة مجتمع عنتوينك وقف كس عنتو تشعلي هاي لكن قف عنتوينك aniga haddii la dhaho marka maanta maxaa lagu sameynaa aad jeceshahay saaxiib khatar ah fuul basbaas lagu kariyay fuul ma fahansantahay fuul cuntada aniga ugu jeclahay cuntooyinka saaxiib fuul waaye wax kale waaye fuulka ilkaha ku qaadanaa ma fahanta fuul waa ugu jeceshaa hadda ka bacdi fuul baa quraac qadaa cashar kaaga dhigaynaa dhegeyso barfuunkee ugu jeceshahay ayasfana shacabka hale si fiican kuusii bartaan ma fahanta aniga والله بينكم شيء ما آمني أنا برفون اسكو بوفيو ما تقانا مجلس عمرتو ودن كان هاد إيجو هريس أوكي سو برفون كاسور بحوا أول برفون إيجو صور بحوا واسكو بوفين جرنا يالك حافظ متطبل عنكو أركع حتى ممكن لكسين كان دوم الرجع وحرفاي اللي رادين جرم والله الله the way you honest وطايلة كده يعني مركا برفون يو انت لين بكو أركع واحد يرتان داوديال waxay ahayd faylan oo su'aalo dhowr ah weydiisay Sharmarka Cabdinaasir oo ahaa fanaan Soomaaliyeed isla markaana darajo aanay qof ka gaarin fanka ka gaaray laakiin isagoo da'yar oo aan 30 sano gaarin 20 ku jira go'aansaday inuu fanka isaga baxo kadib markii Ilaahay uu ku ilhaamiyay su'aalaha la weydiiyay tan ugu saameynta badan waxay ahayd
in ay dhici doonto ama dhici karto inuu mar kale sida uu haatan u yiri fanka waan uga baxay uu yiraahdo fanka waan ugu soo laabtay ama isagoo si tartiib u soo galaya la arko taas uu jawaab waafiye kaga bixiyay cadeymaha ugu badan uu yiri wuxuu yiri anigu daaweyn ma ihinin dadku markay duqoobaan ama weynaadaan ayay dhahan fanka waan ka baxnay imaha yal suuq xumo imaha haysa lacag la'aani there is no way aan hadda u iraahdo barin aan ugu soo laabto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in sida iyo si ka fiican uu Sharmaarke insha Allah niyadiisa ugu sii ilhaamiyo in uu sida go'aanka uu qaato u ahaato muuqaalkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa Sharmaarke iyo Faylan way mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh adeeguna sidoo kale bye bye